gaadhiga markaan xagga hore wax ka dareemo waan furtaa meesha xanuunaysaan eegeegaa meesha saliidda daadinaysa meesha naaftada daadinaysa waxay igu kaliftay shoofeerada waqtiga adag ee diin cayga leh ee waxa weeyaan afkii ka weynaaday eeg iyadoo raggaba ay diin caayaan baa anoo dumarana waar islaantu waa wax islaameed waa nin islaam wax u kaxeeyey nin islaam wax u qabtay waa nin waxa weeyaan ma noolo waad gartay waqtiyada qaarkood intuu xanaaqo inuu iiga dhaadhacay markuu iiga dhaadhaco dee ma alkaaba waraaba igu cuni intayna iiga dhaadhicin baan isidi indhaha ka barbo odaygu aniga iyo ilmahaba isaga waxna bari kara anigu odayow sidan wax u bara ma oran karo isagu waa inuu isbaro isagu waa baratid ma oran kunana talagelin hawshani aan hayo tii dumarka mayna waa tii rag nimanka iskaaniyada dhaadheer wadi way joogsadaan iyo istaagayaa u leeyahay eegaya waqtiyada qaarkood baa dalcadan kaga horeeyay dalcadiiba ii joogsaday iga dhaqaaq markaan idhaahdo inaan jiirayay moodana madaxay qarsadaan warhaadkaaga hayso iga dhaqaaq baan idhaahdo waxa la yiraahdaa xamsaad barre ayaa la wadaa hooyadana gaariga wada inka markaan wadana hooyo cadar baa gaarigii wada umbalay gaarigii hooyo cadar inta gooyo agagaarkan sidaaba ii taqaanayo la yaabkii uu ka dhamaaday markii hore ila yaabay marka aan meel u qaadayno kooxo ama aan meel u dirayno iyada noo qaado gaarigana noo kaxaysa marka anagu waa hooyo aan aad iyo aad ugu faani karno moogtahay qayb libaxda ka qaadata arrimaha bulshada ee degmada Xariirad waxa la wixii wadanka imka degmada Xariirad gaariga kaliya ee sa u dhex taagan markasta sa u dhex taagan ee ka jawaabi kara baahideeda isaga waay gabadhan oo jaar baan ahay waa gabadh aad u wanaagsan marka macluumaadka xataa xawaashka wax walba ay noo keentaa xataa diiwaangelintii oo kale way ka qayb gashay waxay keentay dadkii oo dhan ayay soo qaaday oo keentay xataa markuu aas ku jiro waxay xaabada oo kale waxyaalahaas oo dhan bay keentaa marka aad bay u mahadsan tahay gaariga aan wado waxaan ka dhistay guryahaas noocaasa halkan iyo 4 qolo suuqa oo waxa weeyaan iyaguna 4 qolo guryahaas oo meedhan adigu waxa weeyaan dadka dhan ku sheegay kuwa ila dhashay kuwa aan dhalay kuwa isii dhaleen intaasna runtii waxa weeyaan waan ku koriyay faraqarsiina waan ka haystaa adigu faa'iido badan waan kulay aniga weyla wanaagsan oo kartiya moraal un bay ila tahay maadaama aan waxa weeyaan isku kalsoona kartiya moraal un bay ila tahay wax khaldan uma arko